السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما أنا صاحب شغالي قاعد أسولف هذا مفيد في عالم كذا جوتين حتى نقدر من سماكين سلمان مشوشان فلنا ديتا مركب ولا نصوب وقتي وحسيت شرفت هذا عصرنا أنا سبسكرين بعد فيديو اللي سكت سين شير قدي زيد كومنت كنا وحنا فكرة قبضت أنا نقربت بقولك بقولها هنا سوق أنتم إن شاء الله تقولي هذا ما أنت وحنا فيديو ثم كنت فيديو دحين وحنا رالي جينا كبحنا أنت عم مغنى من دول الله صعب بدنا ما مغني وحيرة مغنى إن شاء الله تاس كان على هذا حرجينا إن ما أنت لقى بلاه الفيديو إنه ما نكشف عن فيديو سوق إنترنت أنتو إلهي هذا مركا ما أنت حندونا إنه حير أودي لجينا تاسو كوساسا إن قف أيا يوصل ده حاجة واتسابك ولا سلمان سريع أيام قف البوان جعل هذا وإذا ديران يعني قف البوان شو دينا لحجرنا لا صاحبه ويقفوا يعني مركز محسن يا تلاقي أهانتي ahaanha adiga daawana maxaad kula tilmaantay gabadhaas aan fikir ahaanteeda waxaan jeclaystay inaan xagga YouTube ka soo dhigo inkastoo iyada aan ka caawiyo fikirka ay qaadatay markaas ay u dhahday waa Salmaan hadii ay san tahay mar waxaan soo sharfkaaga codsanaa inaad YouTube kana soo dhigtid waxyaabo dhiirigelina maalinka kadib ayaan go'aansaday inaan xaggan soo bandhigo marka gabadhaas waxay tiri sida tan waxaan jeclaystay qof walba aan jeclaystay inaan la hadlo qof walba aan jeclaystay inaan la xiriiro qof walba aan jeclaystay inaan saaxiib la noqdo aniga iska kayfayna sababta ma aqaan sidaas daraaddeed gabadhaas waxay fikirkeedu waan siiyay laakiin xagga ma raba inaan hadana dadii waxa jira ay kasooyinkaas ku dhacday laakiin aan wali wax fikir aan qabin lana cabsanayo in dadka u dhigtaan fikirkooda sidaas darteed waxaan jeclaan lahaa in fikirka qabtiin WhatsApp-ka comment-ka nigu raba inaad WhatsApp-ka ila soo xiriirto teeda kale call iyo cod oo soo duubi kartaa laakiin call ma noqonayso sababtoo ah kaliya ma isticmaalo WhatsApp asxaabta studio Salmaan ayaa la isticmaashaa marka waxaan soo sameeyay ka codsanaa inaad qoraal soo qortid fikirkaaga ama wixii aad cod soo duubi kartaa soo duubtid adi ahaan adiga daawanaya gabadha ayaa ku tiriba qof walba oo jeclaado iga fogaanay maxaad kula tilmaantay runtii aanti fikirkayga horta badanaa dadka way ku dhacdaa dadka badanaa ummaddeena Soomaalida way ku dhacdaa ummadaha kale ma garan laakiin Soomaalida ku dhacdaa qof arkaas adoo jecel qofkiisa kaasi dheeraanay kaasi fogaanay taasi macnaheedu waxa weeyaan maanta haddii tusaale ahaan ku soo qaato baasto aad garan Soomaa baasto dhaadheer tala haddii aad ku qada lagaa ku qoraxo ku cashay lagaa dhaaf maalin kaste waad cun lahayd maalin kaste haddii ugu yaraato 7 waad cun lahayd iyo 2 dood laakiin bil kadib waad nicisa wixii sidaas daraaddeed qofka bini'aadanka markaa la hadlaysid waa ku dhibsanayaa falaata sac markaa la hesho wuxuu oranaa qofkan ma bilaa amal qofkan afaraad ka soo waca sidaas daraaddeed waxa ka codsanaya qof haddii aad jeclaatay hadalkaaga ku bilin inuu hadalkaaga ka dhigmo maaha qofka bini'aadankaas qad jecesha ma xitaa ka kala waa ka dhibsanaa teeda kale weligaas ka ilaali bent qofka aad jeceshaatay been u sheegtid ahaanti sharaftaada way dhimanaysaa adigana qofka aad jecel oo weynaysaa taas anaa ku midda kale aan ku raacinaya adiga weligaa qof bilaan hadanin qof bilaan haddii aad danayso wuxuu ku arkaa toqon taasi la macnaheedu tahay inuu qofkaas iska kaaboojiyo فيديوغنا ما تقدرش نقول وحسيت شو اللي قاعد أوصلنا أنت تكون قناعي سبسكرايب لهني سينا شيء كريسي كومنت كانوا حافظ فكرة قبت هتكون ربط انترفيو في إن شاء الله وحنا جتنا أساسيا لما تكلم السلام عليكم